aad baan runtii ugu faraxsanahay inaa xisbiga ku soo biirtaan wadani aad baan ugu faraxsanahay dareenkiina midaysan waxaan si aad runtii uga soo horjeednaa u cambaaraynaynaa uga xunahay in dad lagu xidho damiirkooda iyo doorashadooda iyo xorriyadooda inay xisbi ku biiraan oo odayaal sida la sheegay 8 odaya ay u xidhan yihiin kaliya ay u xidhan yihiin inay doorteen inay xisbigan ku soo biiraan in dadka la cabuliyo waa qalad waa sharci darro waa waxaan wanaagsanayn waa wixii garanaysaan waxa inaga soo maray garanaysaan waxaan leenahay qofna ayaan loo diinin doorashadiisa war dadka lama khasbi karo dadka damiirkooda lama khasbi karo kulmiyow hadduu dadku ku diido ha khasbin xaqna uma lihid inaad khasabto waxaan leenahay haddii dadku ku diido ha khasbin qofkii ku doorta ha ku doorto kii dooranaya wadanina xaq buu leeyahay kii wuxuu dooranayna xaq buu leeyahay waxaynu naqaanaa caburintu ma keento ilaa in lagaga sii carara mooyaane ilaa dadku inay mowqifkooda ku sii adkaystaan mooyaane waxaa la isku dayayaa in laydin bajiyo oo laydinku bajiyo waana soo marteen taa midka adag waa soo marteen sidaa u doorateen xisbiga ayaan annana idinku soo dhawaynaynaa wakhti yar baa 3 bilood iyo googoba inaga xiga ama 4 bilood muddaan gaadhin baa inaga xiga doorashadii maalinta doorashada ayaa insha allahu tacaala codkiina ku ciil bixi doontaan ku meel mari doontaan ku muquunin doontaan madaxda waxaynu dooranay systemka aynu ku bedelo inuu noqdo in wax weeye waraaqda wax lagu doorto nina kama weyna idinku xidhan yahay idinkaa doortay kulmiye idinkaa keenay idinkay idinku xidhan tahay maantana idinkaa dooran kara waxaanu leenahay wadani taa ku doorta waxa weheliya si aa u doorataan kaadharka qaata ka hawlgala insha allahu tacaala dhammaan dibad iyo guda ka hawlgala wacyigeliya bulshada